بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa General Saad Cumar oo taliyaha booliiska qaybta guud ee gobolka Banaadir. Waxaan rabaa saaka shacabka inaan la wadaago iyo ummadda Soomaaliyeed news ama arrin degdeg ah oo u baahan inaan shacabka u iftiinino haddaan nahay booliiska Soomaaliyeed. ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa saaran mas'uuliyad qaasatan midka gobolka Banaadir waxaa saaran mas'uuliyad ka weyn mid shakhsi. waxaa saaran mid mas'uuliyadeed oo saraakiileed oo ciidan oo u baahan inaan xalino wax walba oo nabadgelyada darrada dalka u keenaya qaasatan gobolkan. sidaas darteed maantay ma doonayno in qalalaasi ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. ma doonayno in dib dambe lagu soo laabto oo loogu soo laabto dagaal iyo aragti kala duwanaansho xabad wadata oo aan u qalmin qaranka Soomaaliya inay dib ugu soo laabato. ma dhici karto in baarlamaanka Soomaaliya oo anigu aan u dhaartay sharaftiisa iyo cisigiisa inaan waardiyeeyo inaan soo xiro ama soo dilo. baarlamaanka Soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen. waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo inaysan dhicin. isfaham siyaasadeed la gaaro. baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogtiin. 4tii sano waan ka dhamaatay. waa laydin soo doortay. doorasho dib ugu laabta. deegaanadiinii iyo dadkii idin soo doortay dib kalsooni u weydiista. kadib imaada adinka oo xalaal ah oo dal soo doortay ah. adigoo lagu soo doortay ha ka fakerin inaad wax boobto oo aad wax kororsato. waxaad heli kartaa waqtiga iyo qarashka iyo rafaadka ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato mar kale. amniga gobolka Banaadir aniga ayaa ka mas'uul ugu sareeya muxaarad iyo mucaafid. qof walba oo Soomaaliya waa inuu amni ku joogaa. kama shaqeyn karo qalalaaso. kama shaqeyn karo hebel gudub. kama shaqeyn karo waxaas u dhan. gurigiis nabad inuu ku joogaa. businesskiis nabad ku joogaa. magaaladiis nabad ku maraa. looma baahna abaabul dagaal. qof walba oo hub haysta oo rabo inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa. ma dhici karto inuu isticmaalo. mas'uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir. ciidamada qalabka sida magac kasta yihiin meel walbay joogaan. waxaan u baahannahay u midooba cadowga u midooba. cadowga waa argagixiso. waddanka hal cadow leeyahay iyaan cadow laysaga keendhigin. hebel ku duul difaac inta ka soo gal inta ka gal magaalada hala dumiye waa dhammaatay. nomo waxaan u baahannahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka Soomaaliyeed ka baxaan qalalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaaga. 15 bilood oo la kororsado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno. waxaa loo baahan yahay in mas'uuliyad wadareed la qaato. laga wada baxo dhibka. siyaasadda laga heshiiyo. nabad lagu wada noolaado. ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa waddanka mas'uuliyaddiisa inuu qaato. dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo teendada. ha ku celiyo teendadaa furan. shirkiyaa furan. nabadaa furan. ha lagu laabto. ha lagu soo kala goosto. waxaan u baahannahay siyaasad midaysan. siyaasiyiinta haddaad tihiin inaad waddanka qaranka dantiina ka hormarsan danta qaranka loo baahan yahay. looma baahna inaad hub isku arursataan. looma baahna inaad tirahaan hebel waa dhintay. hebel waa dhacay. hebel waa inta. aqliyaa loo baahan yahay. maanta aqliyaa looga baxaya. haddaadan aqli haynin awoodda ciidanka iskale. amniga ciidanka iskale. mana loo baahna in qalqal la geliyo. mana loo baahna in lagu xadgudbo. dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorashaa loo baahan yahay. ninkii la doorto doorasho kala raadso. wax xoog ah iyo wax
hagardaamaha iyo dib in magaaladan difaac looga galo oo daariheeda la dumiyo ma dhici karta. waxaan leeyahay mas-uuliyaddaad qaado mudan ra-iisul wasaare kana soo bax waa ku filan tahay. kuma baahna inaad meel fadhiisato oo wax lagu meeriyo, waa adiga inaad wax meerisaa. jawaabteyda waxaa leh ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka jawaabo, gacan adag ku qabto, mas-uuliyaddiisa qaato, dalkana xasilooni siyaasadeed u horseedo. cid kale hadday ka jawaabto waxay noqonaysaa hal iska daba wareego. marka waxaan leeyahay mas-uuliyaddaada qaado. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan la hadlo wasiir dube dadkaaga dhinac ka raac. wax lagu soo dhiibo dambe ha akrin. waxaad akhrisaa wixii dalka dan ugu jirto, waxaad samaysaa wixii dalka dan ugu jirto. intaas ayaan kusoo dhammaynayaa. wabillahi tawfiiq.